Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waa Lowdako oo rabo halkan inaan idinku soo gudbiyo cashar gaaban hase yeeshee tayadiisa leh. Dhab ahaantii sidaad in badan maqasheen ama aad qaarkiinba aragteen, waxaa jira qaabab kombiyuutarka meesha usernameka iyo passwordka aad kaga soo geli lahayd oo caadi aad usoo geli lahayd aad dhanka kale laga soo geli karo. Tusaale, guriga hafta inaad furato oo aad furto macnaha furiyaad wadataa guriga meesha aad cidda kasoo furi lahayd oo albaabka aad soo furi lahayd furaha soo geli lahayd ayaaba waxaad go'aansatay daaqadda inaad kasoo gasho. taas macnaheedu waxaa weeye dhankii loogu talagalay ayaad ka weecatay, dhan kale ayaad aad kasoo gelaysaa. qaybtan waxaan ugu talagalay waa waxbarasho, uguma aana talagelin in aan idinku soo gudbiyo si aad aad si khaldan u isticmaashaan, inaad ogaato waxyaabaha ka soconaya dhacaya, lagana yaabo in lagu sameeyo kombiyuutarkaaga. aduu sameeyo qof kuma lihi, laakiin wax walba inaad iska ogaataa dabcan way habboon tahay. halkan waxaan rabaa inaan kaga soo gudbiyo casharkaas run ahaantii gaaban hase yeeshee aan isleeyahay in badanoo kamid ah waxay ka faa'iidi doonaan. inta taqaanaa way garanaysaa, inta aan garanaynin ayaan isleeyahay waxay ka faa'iidaystaan. run ahaantii waxaan isticmaali doonaa haddii la yidhaahdo kombiyuutarkan oo ah Windows XP Professional iyo Linux, Kali Linux. runtii waana kan aan doonayo in aan idinku tuso sida loogu soo gelayo kombiyuutarkan, kadibna screenkiisa iyo qofku ku jira kombiyuutarkan waxa uu soo xaalayo, sida loo daawanayo, tilaab kasta oo qaado loo ogaanayo. haddii dabcan aan bilaabno intaan bal sii gudagelin ka hor, horta waxaan doonaynaa first inaan ogaano, marka ugu horeysa inaan ogaano IP addresska kombiyuutarkan iyo Kali Linux IP addressadoodu ma isla jaan qaadayaan. waxaan ula jeedaa haddii aan pin garayno apply miya mise waa unreachable networka ama IP addressadii isticmaalayaanse maxay yihiin. si aan u ogaano waxaan fiirinaynaa oo ku hormaraynaa kombiyuutarkan. okay, waxaad leedahay IP config commandtaas ayaan ku ogaanaynaa /all. sidaad arkaysaanba wuxuu isticmaalayaa haddaan imaano internet adapter local area connection. haddaan halkaan fiirino IP addresskan ayuu isticmaalayaa oo ah version 4. subnet maskigana waa kaas, gatewaygiisuna waa kaas, default gatewaygiisa. alright, aan ogaano Kali Linux IP addresskiisa. halkaana imaanaysaa, kan haddaan iska xirno oo aan tuso, halkaanaad kasoo bixinaysaa terminalka. sidaanu kugu soo furmayaa, waa ka yara duwan yahay sida IPgiisa kan aad aad commanddiisa aad soo saaraysid. if config ayaad leedahay, waa kan IP addresskiisa. waa
waxaa ugu dambeeya 192.168.211.130 kan waxaa weeyaan broadcastiga waaye kaas marka subnamaskiisana waa kaas. Alright, waa isla fahnay. Okay, hadda ayaan ping garaynaynaa sidaan kusoo aragnay IP addresskiisa kan waxaa u dambeysa 137 inta kale waa isaga mid hase yeeshee halkaas ku kala duwan yihiin. haddii la yiraahdo mar baan maaragtay aan ku dhigani doonaa haddii la yiraahdo IP addressyada iyo sida loo sameeyo dabcan VLSM-ka subnetting-ka howlahaas insha Allah haddii la yiraahdo. Okay, waan ogaanay. waxaan bilaabaynaa inaan ping garayno marka. Ping ayaad leedahay IP addresska computerka haddii la yiraahdo 168.211.137. okay, sidaan arkayno waa run ahaantii apply unreachable ma ahan. okay, sidaan u joojinaa waxaan u jeednaa inuu hadda ping rasmiga oo maaragtay isla jaan qaadayaan. okay, control C ayaan ku joojinaynaa. waxaan gelaynaa computerka kale oo soo ping garaynaa insha Allah. isagana waxaan fiirinaynaa in uu apply insha Allah. okay, wuxuu ahay haddaan xasuusano 130. okay, intaan idhahnay yes wada shaqeynaya. okay, haddaan ogaano intaas waxaan gudagalaynaa haddii la yiraahdo hawsheenaan bilaabayna. waxaan soo gelaynaa computerkan anagoo ku jirna Kali Linux ayaan waxaan soo gelaynaa halkan haddii ilaahay yiraahdo. okay, Kali Linux aan soo galnay. okay, screenkan ayaan iska sixinayaa. okay, waxaan ku bilaabaynaa commandaha la yiraahdo MSF console commandaha la yiraahdo ayaan ku bilaabaynaa haddii la yiraahdo. okay, intaan leenahay. okay, waan sugaynaa hawshiisa wata haddii la yiraahdo. kadibna waxaan insha Allah tusi doonaa insha Allah step by step haddii la yiraahdo anigoo waxay ka qabsanayaan aysan jirin binallahi kabiir. okay, halkan markaan joogno waxaan leenahay search net API intaan leenahay. waan sugaynaa isagana hawshiisa wata haddii la yiraahdo. marka haddii la yiraahdo waxaan sii wadan doonaa commandayaasha run ahaantii markaan ogaano. okay, waan helnay. halkan markaan joogno waxaan ogaanaynaa oo u baahannahay Windows tan ayaan rabnaa ka soo galnay haddii la yiraahdo exploit aan ku soo sameyno. marka exploit markaan ku sameynayno waa in qaybtan aan qaadano maadaama uu window yahay. copy aad leedahay halkan aad imaanaysaa use ayaad gelinaysaa halkan paste ku soo leedahay paste ayaad ku leedahay enter ayaad leedahay. intaa markaad tiraahdo waxaan ku xigan ogaanaynaa haddii la yiraahdo show ayaan leenahay options. show options aan leenahay. alright, kow waxaan ku hormaraynaa marka hostiga
la target gareynaa IP addresskiisa ayaan gelinaynaa oo dhibanaha ah oo ah Windows XPS. Okay. waxaan leenahay set commandaan gelaynaa waxaan leenahay host IP addresskii ayaan gelaynaa dhibanahaas la yidhaahdo 168.11.127 saas wahay. Okay. isla kiyaan la soo baxaynaa waxaan ka bedelaynaa oo keliya IP addresska ayaan u kala bedelaynaa. IP addresskan waa la socotaan waa Linuxka ayuu kala Linuxka ayuu maaragtay ayaa wata marka kan u baan bedelaynaa local maadaama sida uu yahay halkaasaan gelaynaa kaasna oo kamid ahaan loo gelaya. Alright, intaan leedahay. Okay, hadda ayay bilaabanaysaa hawshii exploit insha Allah. Exploit ayaan qoraynaa intaan waxaan sugaynaa commando ma aqbalaa mase aqbal yes waa aqbal waa ka gudbay waa kaas sidaad arkaysaan hawshu haddaan u gudagelaynaa waxaan u dhaadhexaynaa qiimada hakrin gudaha insha Allah computerkaas. Okay, get ayaad leedahay UID. Okay, si aan u ogaano usernamekii waxaan ka tallaabsanaynaa iyo passwordkiisa hawshiisa ka tallaabsanaynaa. Alright, haddaan maaragtay aan ka gudubnay qaybtii user passwordkiisa marka aan laga buutin haddana waxaan ka tallaabsanay insha Allah pwd ayaan leedahay. Alright, isla markii waxaan halkan ku ogaanay inaan gudaha ugu jirno oo kasoo tallaabsanay waa Windows on system 32. Alright, sidaan macluumaad lasii ogaano waxaan leenahay sys inf ayaan leenahay intaan leenahay waa kaas waxaad arkaysaan computerkaas dhibanaha waxaa isticmaalihiisa ama usernamekiisu waxaan ula jeedaa usernamekiisa maahan waxaan ula jeedaa computer namekiisa waa maamule 2 Windows XP ayaan u jeednaa service pack 3 na waa u jeednaa. Okay, domain namekiisu waxa weeye wax domain name ah maaragtay si default oo ku yimaada ku jiraa marka macluumaadkiisa waan sii gudanaynaa jaabigaan ugu jirnaa. Okay, waxaan ku sameynaynaa screenshot ayaan ku sameynaynaa. Okay, screenshot. Okay, waxaan ka qalday haddii aan dib u fiirino yes saasaan ka qalday. Alright, screenshot aqbal ayuu noqday isagana. Alright, hadda ayaan markaa command u dambeeya gelinayaa si aan gudaha ugu sii dhaadhacno run vnc enter official marka. Okay, yes waxaan sugnaa waxaa waaye inuu soo bilowdo yes waxaad arkaysaan turbada inaan gudaha ugu soo ranay computerkan qof allaala qofka isticmaalayaa meeshuu click siiyo tallaabta uu qaado halkaas ayaad ka daawanaysaa waad la soconaysaa tallaab kasta uu qaado. Tusaale ahaan isticmaalaha computerkan wuxuu tegayaa start
daawaduhu waa arkaysaa u daawanaya staralatiga u jeedaa. Okay, wuxuu tegey isticmaalaha computerkanu wuxuu tegey my computer ayuu tegey right click ayuu ku yiraahdaa daawade uu daawanaya ishu ku hayaa isha ayuu ku hayaa tilaab kasta oo la qaadayo. wuxuu tegey properties yes ishu ku hayaa calendars isticmaalaha Soomaaliya oo u soo dhacay computerkan Windows XP ah wuxuu isha ku hayaa tilaab kasta oo la soconaya meesha uu tilaab u qaado klik ku siiyo miiska la socda. Okay, tusaale ahaan wuxuu yimaaday isticmaalaha computerkan computer name change intuusan gelin tilaab la socda tilaab ayaad u daawanaysaa. wuxuu tegayaa change waad arkaysaan. waxaan soo aragnay maamula 2 waxaan soo aragnay group oo defaultgiisa caadi meesha ugu jira yes tilaab ayuu ula soconayaa. waxaa weeye marka dabcan waxaan u baranaynaa waxaa weeye inaan ogaano wax ka barano teknolojiyada casriga socota ogaano marka insha Allah waxaan filayaa in aad wax badan aad ka faa'iideen waadna ku mahadsantihiin daawashadiina. waa mar kale iyo lowdha kawanlah insha Allah ka faa'iidays wanaagsan casharada taxanaha oo noo socon doona hadii Ilaahay yiraahdo iyo insha Allah ismaqalka xiga ee dambe ama casharada dambe insha Allah waad mahadsantihiin. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. sorry inta aan ka bixin dabcan weli waxaan ku guda jirnaa calendars marka waxaad samaynaysaa halkan baad imaanaysaa intaanan ka bixin ka hor sorry cashuwa noo socdaan halkan baad imaanaysaa kan waad iska xiraysaa kan markaad iska xirtid kana waad xiraysaa isagana terminalkan markaad xirtid waxaad samaynaysaa si aad u ogaatid dabcan picturadii ama sawiradii aad ka qaaday computerkii aad gashay halkan baad imaanaysaa. halkan markaad klik ku siisid waxaad imaanaysaa halkan baad klik ku siinaysaa kuwa sawiradii marka anyway waad aragteen marka waad mahadsantihiin. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. kan waa iska xiraya